xisbiga mucaaradka ee kulmiye magaalooyinka Caynaba iyo Og ayaa maanta sameeyay isu soo baxyo maalintoodii ololaha doorashooyinka madaxtooyada iyadoo maanta ay ahayd maalintii ugu ballaarneed ay sameeyeen taageerayaasha xisbiga kulmiye ee deegaanada Caynaba iyo Og taageerayaasha xisbiga kulmiye ee magaalada Caynaba ayaa maanta sameeyay dhoolatuskii ugu weynaa ay sameeyaan iyagoo soo bandhigay ciyaaraha hindaha ee dhaqanka waxayna ku heesayeen heeso lagu ammaanayay musharaxiinta madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa waxaa wadooyinka magaalada xidhay gawaadhi tiro badan oo lagu xardhay astaanta xisbiga kulmiye iyo musharaxiinta u taagan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa waxaana buux dhaafiyay gawaadhida taageerayaal badan oo kumanaan dhaafay halka kuwa intaa ka badan ay taagnaayeen hareeraha wadooyinka iyagoo ku dhawaaqayay orayo ay ku taageersan yihiin labada mas'uul ee u taagan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa kadib markii uu soo dhamaaday banaanbaxa wadooyinka magaalada ayaa mas'uuliyiinta iyo taageerayaasha xisbiga kulmiye isugu tageen fagaaraha khayriyada magaalada Caynaba halkaasi oo khudbado ay ka soo jeediyeen mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye iyaga oo ballamo iyo ballanqaadyo sheegay taageerayaasha haddii ay siiyaan codkooda qaar kamid ah xildhibaanada mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye oo ka mid ahayeen gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee magaalada Caynaba iyo garabyada dhalinyarada iyo haweenka ayaa dhammaantood sheegay inay ku kalsoon yihiin xisbiga kulmiye inuu ku guuleysto doorashooyinka lagu wado inay qabsoonto 26 bishan Juun waxa ayana magaalada oo ka socotay munaasabada lagu taageersan yahay xisbiga kulmiye oo magaaladaasi si weyn isugu soo baxay dadweyne tiro badan iyadoo mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiye ay dadweyne ku dhaqan magaaladaasi si weyn ula hadleen iyagoo ugu baaqay in aan loo kala hadhin u codeynta xisbiga kulmiye maxamed shaqalle telefishinka Universal laasaan